nin lagu tiriyay inuu yahay ninka ugu hantida badan la magaalada ayaa waxa uu lahaa hal wiil oo kaliya. inkastoo xaasas fara badan uu guursaday laakiin carruur kale muusan dhalin. sidaas daraaddeed wax alla wixii jacayl, awood, hanti uu hayay waxa uu isugu geeyay halkaasi wiil. wuxuu go'aansaday inuu wiilkiisa siiyo wax alla wixii farxada uu u baahan yahay si uu u gaaro berrito halka uu isaga la doonayo. wiilkii yaraa waxa uu ku soo barbaaray jacayl xad dhaaf ah oo intii loogu talagalay ka badan, ilaa la gaarsiiyey inuu aabbihii la wadaago wax alla wixii qalbigiisa ku soo dhaco si isla markaaba lagu xaqiijiyo. wiilkii sidii ayuu ku soo barbaaray. weligii maysan dhicin wax qalbigiisa soo galay oo uu waayay. markii uu soo qaangaaray oo uu nin weyn noqday ayuu odagii dhintay. hantidii oo idil waxay ku soo wareegatay isaga, mana yaqaan sida loo maamulo. waxa uu yaqaano oo keliya waxay tahay inuu afkiisa ka sheegto waxa uu u baahan yahay si loogu sameeyo. wuxuu ku qasbanaaday nin ay saaxiibo ahaayeen inuu intuu u yeero oo uu ka dhigo sirhayaha noloshiisa si uu hantidan ugu haayo. wiilkan lagu soo biiriyey nolosha hadda wax badan kama yaqaana saaxiibkii oo ku saabsan sirta hoose oo uu ku noolaa. keliya waxa uu yaqiino waxay ahaayeen inay israacaan, baabuurkay doonaan qaataan, halkay doonaan aadaan, sidii doonaan u noolaadaan, kadibna ay guryahooda kala aadaan. laakiin ma oga wiilkan hantida faraha badan la u soo hartay iyo aabbihii wixii ka dhexeeyey iyo sida uu u noolaa. waxa uu u haystaa in uu yahay qof awood fara badan leh, hantidan aabbihii uu ka dhaxlayna maamulan kara. wiilkii hantida faraha badan la dhaxlay wixii loo bartaa waa baaska ayay Soomaalidu tiraahdaa. wuxuu dhaqankiisu ahaa inuu aabbihii u sheego wax alla wixii uu rabo. maadaama aabbihii meeshii ka baxay, wuxuu ilowsan yahay in qofkan la jooga uu yahay qof shaqaale ah oo saaxiibkiina ah. wuxuu moodaa inuu aabbihii yahay. wuxuu mar waliba u sheegaa wax alla wixii ku soo dhaco. wuxuuna u raaciyaa inuu ii sameey. aabbahay buu ii samayn jiray. wuxuu meesha ka saaray awooddii ahayd inuu yahay ninka hantida iskale, siduu doonana u maamulan karaa. weli wuxuu u dhaqmayaa sidii isaga oo ah qof hantidan iyo dhaqaalahan faraha badan la u baahan, laakiin aan awood u lahayn siduu u doono inuu maamusho. ugu dambayntii ninkii waxa uu noqday sirhayaha guud ee saaxiibkii. maalin maalmaha ka mid ah ayaa wiilkii hantilaha waxaa ku soo dhacday inuu guursado. wuxuu u yeeray sirhayihiisii. wuxuu ku yidhi, saaxiibow, waxaan rabaa inaan guursado, laakiin gabadha aan rabo inaan guursado nooceeda ayaan kuu sheegaya. kow, waa inay tahay gabar aad iyo aad u aamusnaan badan, hadalkeeduna yar yahay. labo, waa inay noqotaa gabar dhakhtarad ah ama kalkaaliso ah, ugu yaraan isbitaal ka shaqaysa oo dadka daaweysa. saddex, waa inay noqotaa gabar hooyadeed ay nooshahay si aan uga wada ducaysanno. niyow ii soo raadi gabadhaas inaan guursado ayaan rabaa. ninkii waxa uu bilaabay inuu arrintaasi baarbaaro uu raadiyo. waxa uuna soo helay gabadhii. muddo yar kadib ninkii waxa uu guursaday gabadhii. waxa uu helay hadafkii ujeedka uu ka lahaa guurkiisa. waxa uu ninkii saaxiibkii ku yidhi, niyahow, gabadhan ii gey isbitaalka kana soo celi. waa sirhayihii oo markaa laga dhigay darawal. ninkii sirhayaha markan waxa uu dareemay in saaxiibkii uu dullaysanayo ihaanaysanayo. halkaas waxaa ka gashay calool xumo. waxa uuna saaxiibkii ku yidhi, isaga oo xaaskiisii inta isbitaalka geeyey ka soo celiyey, saaxiibow, waa mahadsan tahay. waa isoo garab qabatay, waad i caawisay, anna waan ku caawiyey. waan wada shaqaynay, laakiin niyahow ma rabo inaan xaaskaaga u noqdo darawal. niyahow, darawal kale u raadi gabadha, ama aan kuu keeno, ama saaxiibow adiga wada xaaskaaga geyso ee soo cesho. haddii intaasi midkood aad aqbali weyso, niyahow waa ismacsalaamaynaynaani adiga. wiilkii hantilaha ahaa oo arrintaasi aad uga carooday kana filanayn saaxiibka ayaa wuxuu ku yidhi, waxaan kugu aaminay xaaskayga, markaasaa waxaa ila timid waxaan iyo wax kasii liita. soo wareeji hantida guriga aan ku dejiyey, ka guur. wax alla waxaan kugu wareejiyey soo wareeji, sida ugu fududna shaqadan uga dhex bax. sirhayihii arrintaasi aad ula yaabay ayaa wuxuu ku khasbanaaday inuu tallaabooyinkii la fari raaco. waxa uu wareejiyey wax alla wixii hanti ahaa, waa ay kala tageen. nasiib darro, sirhayihii waxaa soo wajahay rafaad fara badan. waxa uuna ku noolaa waayay isla magaaladii. wuxuu ku khasbanaaday inuu isaga tago magaalada si uu nolol kale u raadsado. hantiilihii isagiina waxaa ku soo baxay wax uusan filanaynin. waa dhaqankiisii xumaa ee ahaa in wax alla wixii uu doono uu saaxiibkii sirhayaha ah u sheegan jiray. hadda ma jirto cid loo sheegto, ma jirto qof lala wadaago waxan. ninkanna baahiyooyinkiisa iyo waxyaabaha uu u baahan yahay ma dhammaadaan, maadaama uu hanti fara badan haysto. waxa uu noqday nin wareersan,
isku dhex yaacsan aan garanaynin siduu wax u maamulo iyo meeshuu wax ka bilaabo iyo danaha khaaska uu leeyahay siduu u fushado. Markaa kadib ninkii waxaa isbedelayba qaabkii uu u noolaayay dhaqankiisii. Waxa uu isbitaalkii xaaskiisii ugu tagaa in ka badan 6 ilaa 7 jeer maalintii. Gabadhii waa ay yaabtay. Waxay u sheegtay inuu halkan uu isbitaal yahay, dadka xanuunsanna lagu daaweeyo. Haddii uu iyada u baahan yahay ama inuu arko, guriga uu ku sugo, subaxdii isbitaalka uu keeno, iska tago, habeenkii iyada imaan doonto. Bal waa kaa adiguba ka dhaadhici ninkii. Gabadhii ugu dambeyntii waxa uu yeeray maamulka isbitaalka, waxaana loo sheegay in ninkan isbitaalka ay ka reebto haddii kale shaqada laga eri doono. Waxay u sheegtay ninkeedii in dhibaatadaasi soo wajahday, shaqadana way doonto. Intuu qoslay ayuu wuxuu ku yiri, maxaad uga baahan tahay? Awal bujeedkaygu waxa uu ahaa inaad dadka masaakiinta caawiso daaweyso. Isbitaalkan iyo isbitaallo kale fara badan ayaan kuu iibin karaa. Ka soo tag, isbitaal ayaan kuu samaynayaa. Gabadhii way ku khasbanaatay in isbitaalka ka soo tagto. Wuxuu u qalabeeyay isbitaal kale oo cusub oo weyn. Laakiin waxaan meesha lagu sii xisaabtamin uusan ogeyn in isbitaalkan weyn ee la sameeyay hal qof kaliya uusan waxba ka qaban karin. Loo baahan yahay dhaqaatiir fara badan iyo shaqaale fara badan, intaasoo idinle u baahan yihiin mushaariic qaataan. Si kastay ahaataba waxaa lagu guuleystay in isbitaalkii la maareeyo iyadoo gabadhii dhakhtaradda loo daayay fikirka iyo maamulka isbitaalka. Waxay markaa noqotay madaxii isbitaalka, isla markaana waxa ay qayb ka tahay dhaqaatiirta daweysta dadka. Muddo kadib ninkii waxa uu bilaabay inuu xaaskiisii ka shakiyo, laakiin ma yaqaan qof uu arrintaas u sheego si loogu soo baaro. Waa saaxiib la'aan, keligii magaalada dhex orda, hanti haysta, laakiin nolosha raaxadeed iyo farxadeedu ay ka maqan tahay. Intaa waxba u sii dheer inuu ku soo kordhay shakigan uu xaaskiisa ka qaaday. Gabadhii dhakhtaradda ahayd ee xaaskiisa ahayd oo arrintana u dul qaadan weysay ayaa ugu dambeyntii ka carootay oo aaday gurigii hooyadeed. Ninkii markii guriga u yimid waxa uu u bartay noloshii uu yaqiinay, laakiin caawa arrintii ma jirto. Gabadhii ma joogto, isbitaalkii ka raadi ma joogto, meel uu doono garan waaye. Wuxuu soo xasuustay in ay reer lahayd. Wuxuu isla markiiba u cararay guriga hooyadeed. Wuxuu u tagay iyadoo halkii joogta. Wuxuu u sheegay in ay soo raacdo, gurigooda ku laabtaan, halka arrintooda ku xalistaan. Nasiib darro way ka diiday. Waxay ku tiri, niiho aniga adiga isma anfacayno, suuragalna iima noqonayso inaan hooyadayna ka duceysto adigana kaa duceysto. Arrintii waa ay sii xumaatay. Gabadhii waxay isaga tagtay isbitaalkii loo qalabeeyey, waxayna si iskeeda u aaday isbitaal kale. Waxa ay noqotay qof ka madax bannaan ninkan iyo afaarihiisa oo idin, inkastoo uusan weli furin. Ninkii hantilaha waxa soo wajahay dhibaato kale. Wuxuu ku khasbanaaday inuu raadiyo sirhayihii saaxiibkii oo uu sida xun ula dhaqmay. Waxa ugu tegay magaaladii uu ku noolaa. Wuxuu u sheegay dhibkii soo wajahay iyo isaga iyo xaaskiisa waxa kala haysta, una baahan yahay caawinaadiisa iyo garab istaagiisa si uu farxaddii qoyskiisa dib ugu soo celiyo. Sirhayihii oo ciil fara badan u hayay ninkan, dhagar fara badanna la damacsanaa, ayaa arrintaasi aqbalay isagoo ujeedkiisu mid kale yahay. Magaaladii ayaa dib loogu soo laabtay. Sirhayihii waxaa loo diray gabadhii si uu soo celiyo. Ujeedku wuxuu ahaa inuu soo qanciyo kana soo dhaadhiciyo inay nolosheeda dib ugu soo laabato, hadda wixii ka dambeeyana aysan la kulmi doonin wax iyada qalbigeeda dhaawaca. Laakiin sirhayaha markii gabadhii uu u tegay wuxuu u sheegay in ujeedka uu u socdaba ay tahay inuu iyada u fududeeyo qaabkii ninkan looga fasixi lahaa, isagana uu soo diray, diyaarna uu yahay inuu furo. Gabadhii oo arrintaasi aad uga farxday ayaa waxay ku tiri, waxaan rabaa in la i furo, wax shardiyana ma wato, wax aan ka rabana ma lahan, meherkaygiina waanu cafiyey, keliya waxaan ka raba waxay tahay inuu furo. Ninkii wuu soo laabtay. Wuxuu u yimid saaxiibkii hantilahaa. Wuxuu ku yidhi, saaxiibow arrintaad ii dirtay way suurageli weysay, weliba waxaan soo arkeen arrintaasi mid ka sii daran oo ka sii khatarsan. Waxaan tegay gurigii gabadha oo nin kale uu joogo, in adeerkeed ah, lana qabanqaabinayaba sidii ninkaasi loogu dari lahaa, adigana meesha lagaaga saari lahaa. Intaa waxaa sii dheer iyadana inay hooyadeed ku lahayd, hooyo anigu waxaan heshiinay ninkii dhakhtarka ahaa oo ninkayga dartii uu iiga masiiraba. Aniga ninkaasaan jecelahay, ninkaasaan raba inaan guursado, hadafkayga ujeedkaygu waa nolosha ninkaas, in adeerkayna ma rabo, ninkaa igu mehersanna ma rabo. Sidaas daraaddeed saaxiibow, naagtu shakiga aad ka qabtay aad sheegaysi waan ka shakisnaa. Waa run, nin dhakhtaray saaxiib la ahayd, isbitaalka waxbaa ka jiray, adiga ayaa saxnaa, xaasku uma noqoto, sharafkaaga iyo qiimahaaga uma qalanto, sidaa moodayna maysan noqonin,
walaalow gabadha iska fur wanaagaaga ku jira. ninkii hantiila ahaa oo sirhayaha saaxiibkii aaminsan ayaa wuxuu si fudud ku fasaxay gabadhii. waxaa gabadhii doontay sirhayihii, way aqbashay, isagii ayaana guursaday. laakiin weli hantiilihii kama warhayo wax dhacay. muddo yar gaaban gudahood waxaa soo gaartay in ninkan sirhayaha ee saaxiibkii ee la jooga habeen iyo maalin uu gabadhii isaga uu furay guursaday gurina u joogto. dhakhtaradii hadda waxaa qabaa sirhayihii. ninkii hantiilaha oo arrintaasi aad uga xumaaday ayaa ninkii saaxiibkii sirhayaha waxa uu qoray warqad. waxaa ku qornaa 2 eray oo keliya. intuu laalaabay ayuu farta ka saaray. wuxuu ku yidhi, nin yahow, intaasoo lacagana bangigan kuu dhigay, warqadanna qaado. aniga iyo adiga waxaan kaa codsanaa maanta wixii ka dambeeya inaan iska soo horbixin. haddii aad awooddo inaad magaaladii aan kaa soo celiyo u laabato, walaal u laabo. laakiin warqadan markii aad lacagta bangiga kugu jirto xaqiijiso, wixii ka dambeeya akhri. sirhayihii oo faraxsan arrintan uu gaarayna guul u haysta ayaa baxay oo bangigii tagay, lacagtii xaqiijiyey, kadib gurigiisii tagay. isaga oo la jooga xaaskiisii waxa uu ku yidhi, bal ninkii hore ee saaxiibka ahaa waxa uu ii soo dhiibay warqadan. wuxuuna igu yidhi, markaa guriga tagta akhri, war maxaa ku qoran aan wada akhrino. warqadii markii la furo waxaa ku qoran, sida aan kugu aaminay ha laguu aamino, indhahana ha lagu tiro. way fahmi waayeen labadoodaba. intay qosleen ayay iska daayeen. sirhayihii waxaa u bilaabatay farxad iyo nolol uusan weligii ku fikeraynin. waxaa laakiin nasiib darro ku noqotay mar waliba oo gabadha uur ay yeelato, cunuga la dhalo meesha ayuu ku dhintaa. cunugii la dhalaba wuu dhintaa. markii 4 dawood ay ka dhimatay ayay gabadhii xaaskii ku tiri, nin yahow, cunugii 4aad ayaan waayay. waxaan u malaynayaa in ninkii saaxiibka ahaa erayga uu ku yiri ahaa indhaha allaha ku tiro ay sax noqotay. haddii adigu indhaha ilaahay ku tiro, aniga ma rabo inuu ilaahay indhahay tiro. saaxiibkaa waxba kamaan galin, si nadiifaan ku kala baxnay. idinkay musiibadeeda ku dhex jirtaa, iska kay fasax. maxkamadda ayay geysay, dacwad ayay ku furtay, iyadiina halkaas ayay isaga tuurtay. sirhaye waxa uu ku soo dhacay meel cidlo ah isagoo aan haysan xaas, saaxiib, hanti, carruur iyo farxad toona. nuxurka iyo ujeedka qisadeenna waxa uu yahay in carruurteenna markii aan barbaarinayno aan si fiican u barbaarinno, in aan saaxiibadeen marnaba si kastoo inoo xumeeyaan aanan sirtoodana sheegin, wax khiyaanana u geysanin. in qof kasta oo kaa hor yimaada aadan u qaadan inuu yahay saaxiibka, sirtaadana la wadaagin inta ay suuragal tahay adigu aad ismaamusho. waxaan rajaynayaa inay qisadan inoo noqoto mid aan wax ka faa'iidno. dhammaantiin waad ku mahadsantihiin daawashadiinna.